السلام عليكم صاحبي يا سودو هذا مانتي مقالكين عصب مانتا مقالكين waxay ku eegtoona basheekun aniga qosliye laga yaabo in adiga ka qosliyaan ay maanta ku haya bariyaha hada qoslin maanta laga qoslin doona laakiin hada qosl weeyo waa dib naftaas noqo bal marka waxaan eegaynaa sheekooyinka qosl kale waxa laga yaabaa inaad qaar maqashay adigu ama meelaha ka maraan qof ka sheekay laakiin bal waxaan ku soo qaatay in ay ku xasuuyo aan dib ka qosliyo bal hadaba aynu eegno sheekada koobaad waxa leedahay haweeney ayaa ilmo yar bay sidatay oo dhinaca ku sidatay kadib waxay soo raacday bas bay la soo raacday ilmo yar kadib dararkii gaariga ayaa arkay ilmo yar ay gabadhu sidato kadib wuxuu yiri a'uudu billah waxay gabadhan ilmo yar sidataa kadib gabadhu la hadlay wuxuu ku yiri ilmaha yar fool xumaa wali ilmahan oo kale bas kan lama soo raacay waxaan u sii raaciyay in ilmaha yar fool xun yahay kadib gabadhii oo careysan ayaa xagga dambe kursiga fadhiisatay gabadhu waxay sidatay boorso yar amba shadad yar ay garab ku sidatay oo quraad kale ay ka cabtay ay ku sidatay hadaba waxay la soo fadhiistay kursiga dambe odaybay la soo fadhiisatay kadib odaygii baa yaabay oo arkay carada gabadha ka muuqata kadib wuxuu ku yiri maxaa ku dhacay kadib waxay ku tiri waxay caayay darawalka gaariga wata ayay caayay marka wixii ku caayay waxa uu sheegay gabadha hadaba oday waxa ku tiri ninkaas ayaa soo celinaya oo meel iska soo saaraya kadib odaygii oo wax hubsan ayaa yiri iska soo celi daanyeerka yar dusha ku siidatana ECD waan ku sahaye kadib qoraaradii darawalka lagu waday odaygii waa madaxiisa lagu jabiyay sheekada labaad horta dadkan qaadka cunaa waa dad cajiiba mar waxa soo qof mu waaleeyahay mar waxa soo qof macaadiba xaga ku tirisa mar wad la yaabasa mar qoslisa mar waxba u soo hagaagaysa marka dadkan qaadka cunaa sheekada ku saabsan tahay sheekada waxa tahay nin qayla oo ah dadkan qaadka cunaa ayaa wuxuu qabay gabadh 5 caruur oo lahaa kadib caruurta subaxii waa ka kalaha habeenkii caruurta hurdo u yimaada isma arkaan caruurta badan kadib maalmaha kamid ah ayaa mid kamid ah caruurta ayaa timaha loo xiray oo loo dhukuray kadib maalintii xigtay odaygii baa xaafadda yimid marka shaqada ayuu fasax ka noqday maalinta oo xaafadda ayuu sii ku soo naso kadib wuxuu arkay wiil yar oo dhukuran oo hor dhinac u dhaafaya kadib gabadhii markii dambe uu yeeray waxaana uu wiilkii yar ee jaarkeenaada kadib gabadhii waa ku qaylisay oo la yaabtay tir war maxaa qaldan war wiilkayga caruurta maanta garan weeyday sheekadeena xigtay waxa weeye islaan amba gabadh ayaa u tagtay dhakhtarkii waxa uu sheegay inay qabto cholesterol amba beersubag wax noocaas baaritaan kadib waxa uu dhakhtarkii ku yiri waa inaad cuntada dufan kale amba duf kale ee duxda la iska ilaalisaa si aad u caafimaado way hay'adii gurigeeda ku laabatay marka inanteedii la hadashay ku tiri hooyo dhakhtar xun baa maanta u tagay dhakhtar aan nasbayn baa u tagay maanta ee waxa sameeyay qadadii maanta ay soo kullee sheekada xigta nin magaalada jooga ayaa wuxuu rabay abo damcaynu si xabad sigaar cabo kadib waxa uu yiri dad kala dhumo oo meel caadi la galo meel yar qarsoon la gal kadib wuxuu soo galay pool buu soo galay ay gabadh ku jirto kadib poolkii ku soo galay buu arkay wax ur iyo wax noocaas kadib waxa uu yiri gabadh islaamada xeebeynay sigaarkan iska cabay hadhow iska bax kadib soo sigaar iska cabaya ayaa gabadhii soo gashay asay ku tiri heblaayo waxay joogeen maanta ku jirtaa meesha waa qasantay waxay urtan iyo waxay kadib gabadha waxa ku tiri iyo ka dhagoolaha la jooga ee barta fadhiya ayaa waxa sii daayay saaxiibka intuu sahin kari waayay cad dirteed ayuu gabadhu ku yiri ayaa gabadh islaameed ma urtaadii iyo waxaan kugu soo galay baad maanta been ku darsatay sheekadeen xigta nin min qaasan oo qaad ku barqay ayaa qaadkii markii uu waayay ayaa waxa dhacday inuu iraado maanta niyo qaadka xaga keenta qaadka xaga ka doonta maanta kadib mid sheekh xero weymid wuxuu ku niyo qaadku maanta ku saaran yahay qaadka keen maanta qaadka ninkii xerga waxa ku waayahay salaad casarnimo soo tukanay kadib baa ku siinayay kadib salaadii marka soo baxeen labadiiba ayuu ninkii ku yiri hadaba wani balanay ee balanta ka bixina qaadkiisii ninkii xerga waxa ku yiri anu qaadku ma hayo ajar ayaan ka raadsanayay inaan ajar helo ayaan rabay ninkii marqaasana wuxuu yiri hadaa yaa ka aqli yar ma aad ugu daysaa maanta anoo weysa qabin ayaan tukaday ee cidii ajar ku siinaysa ka raadso sheekadani xigta sheekadani waxa dhex martay wiil ayaa habeen seexday aabii waxa ku yiri aab xalay waxa ku riyooday
anoo qodaximday odayga inta xanaaqay ayuu ku yiri wariyaa shaqajaan baatay maxaad marka sii saxansa ka wixii rawday sheekadayna xigta hada dadkan qaad qabana wada taxaan bilo sheekadana waxa ku saabsan tahay raggan qaad qabana mid kamid ah ragga qaad qabana ayaa waxa uu maqlay Soomaaliya deyntii laga cafiyay kadib intuu carray u tagay gabadhii uu qaad ka qadan jiray oo deyn badan ku lahayd waxaana uu yiri ma maqashay breaking news waxa lagu sheegay ma maqashay say ku tahay maxaa jira suu yiri Soomaaliya deyntii laga cafiyay anina shilling milid sheekadana xigta waxa weeye nin waalan ayaa bari riyaha ayuu aad u nacbaa ridii kasta ee ka soo horbaxda waa u dili jiray amba wuxuu ku dhufan jiray kadib maalintii dambe dadkii la yaabeen ay ku yiraahdeen niyo kaalay maxaa riyaha ku leeysaa ee ku disha ku saleeday kadib halkii uu soo go wax badan ma oran wuxuu yiri indhihii gaalada kale leeyihiin sheekadana xigta waxa ku saabsan tahay nin reer mudug ah dadka reer mudug ah wadan iyo hal cad oo runta ku sheegay iyaga dadka reer barco nin reer mudug oo laba xaas qaba ayaa la weydiiyay labadiisa xaas mid uu lambarkeeda xifdisan yahay ama uu hor ka hayo kadib isma waalin waxa wili iyo tabahda weyn ayaan xifdisan lambarkeeda sababtuna wax kale maaha ee waa cabsi aan ka qabo nafta ilaahay ayay keentay buu leeyahay meel kasta maro way la soo halasa sababta ayaan lambarkeeda ku xifdiyay sheekada xigta waxa weeye macallin iskuul ayaa ardaydiisa uga sheekeeyay in maalinta qiyaamo dhulka cirka la laabayo dadkuna wada dhiman doonaan mid kamid ah ardayda ayaa yiri macallin far ayay taagan aniga su'aal baan qabaa macallinka ku yiri su'aasha aad qabtay sheeg bal waxa uu yiri macallin maalinta sheegayso iskuulku ma saxba sheekadana xigta nin sheekha ayaa waxa uu soo iibsaday booyad biyo dhaamisa kadib waxa uu dhiibay oo darar uga dhigay nin dadkan qayla ah kadib waxa ku yiri booyada aad u ka xeego markii dambe sheekhi ninkii ka shakiyay bal in uu nin daacad ah ahayn ayuu ka shakiyay kadib waxa uu sameeyay booyada xaga dambe ayuu waxa uu ka qoray nin ku aaminaha khiyaamayn markii dambe waxa arkay ninkii booyada waday ee dararka ahaa isna xaq hore ayuu ka qoray wana tuuntay walay naga tahay sheekadana xigta laba toqom ah ayaa waxa uu soo galay tuug guri ay deganaayeen amba qol ay deganaayeen ayuu tuugu soo galay habeenada kamid ah kadib tuugi ayaa baaskoolada ula soo baxay labadii nin waxaana uu ku yiri hada dhaqdhaqaaq ay sameeysan waa idin toogan doonaa kadib labadii weesnabeen tuugi waxa uu qaatay wixii alaab guriga yaalay moobiladii dharkii shantadii wixii dhan ka gurtay kadib waa iska baxay markii dambe hadaba mid kamid ah ragii ayaa qosol la dhacay oo qoslay oo raftay mid kamid ah ayaa ku yiri maxaad ku qosli wayna la gurtay ma qosol bayno yaala ilaa maanta farta ayaan soo dhaqaajinay imanu dareemi sheekadana xigta waa sheeko qosol badan wiil ayaa hadda ka hor soo booqday gabadha saaxiib ahaayeen waxaana uu soo galay gurigii gabadhii iyo aabaheed oo fadhiya gabadha ayaa ku tiri walaal maxaa tarnaa maanta wiilkii ayaa ku yiri gabadhii waxba walaal ma tarnaa ee ma haysa buugii ahaa shulwimiid ma kulmayna gabadha ayaa ku tiri waan ka xumahay walaal buugaas ma haya ee waxaan hayaa haddaad rabtid buugii ahaa wait me at the door igu sugo albaabka I will come to you after 5 minutes 5 daqiiqo dib ayaan ku imanaya wiilkii ayaa ku yiri meey walaalkan waan haystaa ay meey helaysaa kii ahaa okay do faster please gabadha ayaa ku tiri ha kaas waan hayaa asaga iyo kii kale ahaa okay my sweet odayga ayaa soo booday oo yiri gabadhaydu fiican tahay haddaad waxa soo buug akhriday iskuulka kaalmaha hore mad ka gelin laakiin odaygu waxa sii raaciyay hal buug ayaa dilowday gabadha ayaa ku tiri buugaas muxuu ahaa odaygii wuxuu yiri waxa dilowday buuga I am not stupid I understood everything stupid mayhi wax kasta ma fahmi habixina joog fadlan hadan uga soo tahay subscribe saar oo asxaabteena la wadaag muuqaalkana like saar si asxaabadana u gaadho hadaba inta rabadaan ka horeysa amba rabadaan dhexdeeda saaxiibay waxaan doonaynaa inaan 10,000 ilaa 20,000 gaadho bartanaan joogna maanta idinka ayaan faldiina ku soo gaadhnay hadaba calaamadan cas hadaan ugu bedelaa aad ba mahadsantihiin saaxiibayaal meel walba dunida ka joogtaan